waree kalemaana waxaan idin weydiiyey ma dhammaada cajaa'ibo cishadii alla keenaba intaad ciidda ku nooshay cibaaraad aragtaaye cadowgii falastiin ciroolahooda gaboobay iyo carruurtoodaba laayee carrigooda ka qaaday wax inay ka ceshaan iyo caawimaade ha joogtee madaxdii carabtoo dhan cilaaqaadka yuhuudda waya kow cararaayee ma cabsaa kallifaysa mise waa ku caqiido war ninkan shirkii jaamacadda carabta inaan fadhino miyuu noo maleeyey aryaga boosow carabu awalba ciidan kale ma lahayne carabkay falastiin ku taageeri jirta asagana haddaa laga gooye qalinkii cambaariintan ma laga xaday war miyaydaan maqal carabu waa heshiisa waxaynu ku heshiisa inaana heshiin arooda hadda waxay ku heshiiyeen inay yahuud la heshiiyaan arooda carab haddaa heshiisi waxayna ku heshiiyeen inay yahuud la heshiiyaan falastiinna warkaada iska daayaan warnimada horta dawladda Soomaaliya hadda ka hor ninkii twitterkiisa ku soo qoray Israa'iil in xiriir lala sameeyo waa wax iska caadiya waa tii xilka ka qaaday hadda mowqifka carabta xaqiiqo taaganta war waxba yaan la canaananay carabtu waa carabtii Iiraan oo cartamaysiyo Turkiga ay ka cabsood aryaadaha qadiibkii masaajidka xaramka Sheekh Sudaysi mugow ku qudbeeya in yahuuda lala macaamili karo aan carab ka quusnay war anigu waxaan la yaabay Soomaalida maxaa Israa'iil ka hadlaysay maalin dhawaad xildhibaanna Soomaaliland wuxuu kula taliyay Israa'iisha carabtii naga xoog badneed u kala ordayso inaan looga dheerayn oo ma hilmaameen waa boqol yahuudiye rag baa biirinayo baarka u firaaye barqal lagu ma gaarin warwariga dhammaantiis Donald Trump carab waa ka adkaaday war waxaa la yidhi dacartii Dubai iyo dhawaan hadalkii soo duulay yahuudana danteedii ayiday damci shaydaanka Falastiinna lagu diidanaa dawladnimadeeda dandansi weeyo xaqa lagu duraya war kalamaanay waxaa la yidhi tiisaba daryeela dadka kale wax taartee Falastiin wax uma qaban karno annaga teenu haysataaye iiga warrama shirkii Soomaalidu madaxdu ma furmay maxaa waraho laga hayaa war shirka wuu furmay madaxduna waa isu qosleen intaasaan ka ogahay anigu aryaadaha abaan faarax nuur Allah u naxariistay hadda ka hor wuxuu yiri qosol beena fool wada qayaxan qiilan garanaayo booraan afkii laga qafila qabarna hooseeyo doqon baa halkii lagu qatale qoorta soo dhigane maana midiya lay qarshaa laygu qali doono war Cabdillow musabixi baa gabayga ayaan hore daliishaday adiguna ma kula daaratay walaada Cabdillah hada daaragti waa musabixini waa wada Cabdillah oo Cabdillah ma jeeganto kamid yahay war Cabdillah Aaranjaan kama sokeeyo war xoogayga wadaniyiinta goor mu ka bax war waxaan maqli jiray ciidiid waa cali calina waa ciidiide Cabdillah ma halkaas soo joogaa war ma haysaane xalay markii la rabay dadku inuu saaxdo Facebook war ku soo booday ra'iisul wasaarihii hore aan ra'iisul wasaare ka dambeyn xalay markii la seexan rabay Facebook wuxuu ku soo qoray musharaxaan ahay horta ra'iisul wasaaraha sidii xilka looga qaaday warkiisa lama maqal waxaana la sugayay inuu wax badan ummadda u faahfaahiyo oo waati hadda ka hor la yiri dad waxay qarsadaan qiyaama in la tagaan oo looga qaandhabayay siyaasiyiintii qasaartay runta soo qiran mayso miyaan saqayr hadlayn oo arrimo aan qumanayn oo qorshahooda ogaa iyo qatar soo bandhigaynin ma qusaysa ileen oo xilkii waa laga qaaday war ra'iisul wasaare Khayre la filimay musharaxnimadiisa inay Facebook ku koobnaato waxaa la rajaynayay in fagaara loo dhan yahay uu ku soo bandhigi doono aryaadaha anigu xala mugaan arka ra'iisul wasaare Khayre oo Facebook madaxweyne ku raba waxa igu soo dhacda mugga hore in Twitter lagu magacaabo daqiiqad gudaheer ka kadibna 7 daqiiqo xilka looga qaaday haddana oo lama daqiiqo ka yar isku sharaxay mugaxaad kala yaabaysin madaxweyne 10 daqiiqo ah oo rabaahe war anigu xalay markaan arkay fariinta Facebook waxa igu soo dhacay warkii Sanbalolshe ahay dhicis inta midida loo soo wado ayuu dhintaa Khayrana waa saqiir siyaasadeed warxantu waxay leedahay Khayr musharaxnimada dhabka ma ahayn dambi farmaajo ku soo oogi rabo ka hortagay arooda Khayr wili farmaajo maaska baqooya warnimada waxaan la yaabanahay dambiga lagu soo oogay Khayre farmaajo xagee ka galaya war Khayre dambi hal lagu oogo ama yaan lagu oogin waxa abwaan guuro hore u yiri hadda ka hor waxaan Fahad iyo farmaajo ogeyn ma falin Khayre ka fiirsada war Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu Facebook ku soo qoray musharaxa cusub waan soo dhaweynayna laakiin dhibistii qalbi dhagax weerarkii 17 December ee xarunta wada jir xilka tuuristii Professor Jawaari safar xanibidii labada madaxweyne iyo cunaqabatayntii Kismaayo mas'uuliyadeedii ha qaato ama meel ha saaro mise isagoo og ayuusan ogeyn war Cabdiraxmaan Cabdishakuur wili musharaxa magaciisa waa kari laaya war Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ku faraxsan yahay Khayre mucaaradaya isagu inay Facebook wada isticmaalayaan maanta aryaadaha warkiina san ku keenahay waxa kale hore loo yiri qof waliba
qof waliba wuxuu qabaa yaqaanaa loo soo qadimayaa. quruur ma haysaane ra'iisul wasaarihii khayra bedeli lahaa muqdishuu joogaa baa la yidhi. warka boosow ma Hargeysa laga keenay. war ra'iisul wasaaraha sheegaysaan Nairobi waa laga doonay, Turkiga waa laga doonay, Jabuuti waa laga doonay, haddana waxaa leedahay muqdishuu joogaa. war intaa sheegta qoorqooraa tagay ma asagaa wada. horta madaxweyne waare hal maalin ra'iisul wasaaraha loo diray war shiiqowna ka soo laabtay. war markii Deni iyo Axmed Madoobe ra'iisul wasaaraha loo diray waxay dhaheen magaalada Muqdisho markaan marmarnay waxba iskama bedelinoo sidii bay u baabaasan tahay, nadaafadeeduna ma fiicna. warana waxaan xan ku maqlay ra'iisul wasaarihii la magacaabi lahaa in korona looga cabsaday. aryaadhaha aniguna waxaan maqlay ra'iisul wasaarihii la magacaabi lahaa hoteelka xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu ku dhintay. war anigana waxaan maqlay ra'iisul wasaarihii la magacaabi lahaa inuu deemishkii habeen hore ku dhaawacmay. war waxaan maqlay ra'iisul wasaaraha Mahdi Guuleed in Hargeysa looga diray, asagana waa tagi la yaal yiri waa ka baqa. war shilaa Mahdi Guuleed miyo wakiilka ah Hargeysa tagay. aryaadhaha qaran dumisaa tihiina waxaa la yidhi hanqaraarac lug uma hitiyo dawlana nin. war waxaadna war ugu daalin habeen dhaweed madaxweynaha markii laga sugaayay inuu ra'iisul wasaare magacaabo Cabdinuur Maxamed Axmed uu agaasime ku-xigeenka madaxtooyada u magacaabay. war Cabdinuur ra'iisul wasaare khayra inuu dhacayo wuxuu sheegay shirki dhuusama reeb laba habeenku magaciisa kari waayay. aryaadhaha habeenkaas Cabdinuur waxau noo sheegay lamada jago in madaxweynuhu muddo isku hay doono sababtoo ah madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Farmaajo waraan ahayn waa laga waayay. war waxaa la yidhi dhulka iyo carrada eebbahay dhab ugu noolaadoo dhaqankiinna suubiya haddaan dhihi lahaa maanta dhibka qaar ku naaxoon fidnada dhaafin baa jire waxaa talada loo dhaamayaa dheeri kala doon. war banaanbaxyadii maanta dhacay maxaad ugu qayb geli weyse. waryaadii dhegaysta dhaleecada mar waa lagu saxaa madaxda dheegoowe dhadhaabaha ninkii hoos galshee dhoohan qariyaay dadkaan dhiidhiyay idhi tixduna waa dhaliil qaran. araada ninkii dhiisha murugsada maxaad dhihi lahaydeen. ana idin aqaane waxaan dhihi lahay how wixii na dhiba waa dhintaan haddaad dhaqaaji maad dhahdaan wixii na dhiba waa dhintaan haddaad dhaqaaji maad dhahdaan. warnimayan war ma haysiine dagaal heshiisaa ka dambeeyo daalibaan iyo dowladdii Afghanistan qadaraa shir uga socdaa waana is hor fadhiyaan waana wada hadlayaan weliba waxay ka wada hadlayaan siday awoodda u qaybsan lahaayeen. marka waxaan la yaabanahay haddii daalibaan oo alqaacida lagu aasaasay heshiis galayaan maxaa u diiday Soomaali iyo shabaab inay heshiis galaan. war wada hadalka daalibaan Maraykanka bilaabay marka hadda shabaab haddii lala hadlayana Maraykanku waa inuu bilaabaa ilaa cid kale wax ka maqli maayaan. warnimayow waxaa la yidhi dagaalka faa'iidada keliya uu leeyahay waxay tahay yaa dagaala faa'iidada ma haddana ii keentay. halka faa'iido dagaalku leeyahay waxay tahay la yidhi cid xaq kaa qabta oo kula hadli diiday inaad ogolaysiiso inay kula hadasho. marka waxaan is leeyahay shabaab sababtii ay wada hadalka ogolaan lahaayeen lama marsiin sababtoo ah lama dagaalin. war waxaa hore loo yidhi warankaagu ruuxu sambudin waar la marin waa. war allah u naxariistay wuxuu kala abwaandoodan yidhi gardarro iyo daandaansi badan reerka lala doonto haddana waan dulqaataye idaab maanta dabadeed leh ka dulmiyey darbadihii kolkuu waana demin waayo ficil lala dirgan ayaa jiroo weydigiigixane ku damqaday mid kibir diidsanaa wuu la diriraaye duqdhexiya haddaad daanya tahay oo dacwada qaado dar allaaban kugu dhaarin iyo diinta eebbahaye dabool male cadaaladu gartee labada kee dow leh dagaal waajib ma u yahay kuwii dhiigga laga daadshay mise dabargo'ooday sugtaan jeerkii laga daalo oo wey degdegi baad oraan laysma daafaco. war reer kalamaan geeda umalandhan sababta ah lankii arjirimadaysaa waa ka geega iyo geega asagaan hore ugu nacdee gurigaagu geed ha naqdee naga tag. warnimayo mada isaaq sidii loo waayey geega haan iyo lankun ma maqlin. war aniguba ereena ma maqale baydhabo inuu gaaray waa la sheegay xagee ka aaday kadib xalay buula burdow ka cashaynayay. araa wax ma ogidee xiintooda hoosteeda ma dhaafin. war bardaal inuu gaaray waa maqalnay xaguu u maray. aryaadhaha maday orod badana ilaahayow uusan aadan yabaal nagu aadine. warbu ahle miyuu u socdaa. warwarka maday intay iga daysiin dadkii waa bahaloobay waxaan la yaabanahay nimanka hooya dhashay oo gabaru la dhalatay oo ayagu gabdha dhaleen oo gabdha u dhaxeen oo dumarka ku xadgudbaya. nimankii gabarta inay ku xadgudbaya
etoobiya haddana dabaqa ka sii tuuray haddaan fagaaro lagu tooganin falkaasu ma joogsanaa faajirnimayna dhale war dadka maanta bannaan baxay waxaa la yidhi waxay u soo qalab qaateen inay dab ku qabtaan daartii gabadha laga tuuray kadibna ciidanka amnigaa ka hor istaagay marka kollayba guri dembi ma geline dad baa dembi ku galaye in guriga la gubo dadkii in la helaa ka wanaagsan allahayow sharcigu inuu addimo daacada helo waxnaa lahayda allahayow waxnaa lahayda kuwii dembigaa galay iyagoo gabadha tuuray in kaamir laga daawado aryaadhaha kuwa gabarhta dabaqa ka tuura in dabaqa hoostiisa dab loogu shidaa lagu dhex tuura ku fiicnaa laheeda war falkaasi falkii daacish waaye cabdullow yaxaad iila yaaba iyo kuwa falkii shabaabay fuliyeene boko xaraam maa ku noqohay marka war yaa xishooda arooran haddii wadatay aniga ii kaan anaa tuuraahe daalim dabaqa ka soo dhace yow kaa kordhicile ka tag